sida aad la wada socotaan 26 December 2025 Benjamin Netanyahu Prime Minister-ka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa xadgudubkii ugu weynaa u geystay qaranimada Soomaaliya dhibaato badan duruufo adag wax badan ay soo martay laakiin sooma marin midda 26 December oo Netanyahu uu sameeyay oo kale sooma marin Soomaaliya markii uu si sharci darro ah oo ugu dhawaaqay in uu dawlad madax bannaan u aqoonsanayo deegaanada waqooyi galbeed ee dalkeena tallaabada Netanyahu qaaday waa mid aan marnaba la aqbali karin gaf iyo gardarro ku ah dhammaan qawaaniinta caalamka heshiisyada iyo shuruucda dunidu ay ku dhaqanto waxay ka dhigan tahay duulaan qaawan oo lagu soo qaaday qarannimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa ay cod dheer ku leedahay gobollada waqooyi ee Jamhuuriyadda ee loo yaqaan Somaliland waa qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dunida cod dheer ayaan intaas ku gaarsiinaynaa kuna xusuusinaynaa